hagaag daawadayaal walina RTN ayaad inagala socotaan warka habeenimana waa daawanaysan markana waxaan eegaynaa halka ay marayaan doorashooyinka la filayeen dhawaantan ay ka qabsoomaan dalkani Kenya waxa stuudiyaha ila fadhiyo wariyaha RTN u qaabilsan arrimaha Kenya Cabdi Axmed markore soo dhaw waa maadsantahay bal waxaad warbixin kooban inaga siisaa doorashooyinka dalkani Kenya halka ay hadda wax marayaan horta ugu horeyntii farxiya waxa weeyaan hay'adda Infotrack ayaa baaritaan ay sameysay ama maaragtay ray ay ka soo qaaday qaar ka mid ah maaragtay dadweynaha oo ku aadan doorashada maaragtay governorsyaasha ay soo shaacisay laakiin tu dhameystiran maysan ahayn waayo county-yaasha sida Garissa, Wajir iyo Mandera laguma soo hadal qaadin laakiin dabcan waxa ay soo saareen marka Garissa, Wajir iyo Mandera dabcan horta tartan culus ayaa jira laakiin waxaan aad uga warrami karaa Garissa aan maalindood soo booqday aan wareysi la yeeshay dadweynaha meesha degan waxa weeyaan saadaasha ay waxay tahay jufada degto koonfurta Garissa ayaa laga yaabaa in ay go'aamiyaan qofkii governor noqon doono waxay qofkii ay la saftaan ama ha noqdo ninka hadartan meesha haysto ama ha noqdo Ali Bune Qorane waxa dabcan labada qof maaragtay ugu cadcad waa eega marka jufada koonfurta Garissa degan qofkii ay la safato ayaa saadaasha u badinaysa inay guusha u soo hoyan doonto markaan ku soo noqdo warbixinta ay soo bixisay Infotrack horta mid ugu horeyso waxa weeyaan warbixinta waxay sheegaysaa governorsyaasha intooda badan inay soo noqon doonaan sababtana waxa weeye dadkan xafiiskay hayaan oo maaragtay dhaqaalihii dhan ayay hayaan marka intooda badanna sida la sheegayo waxa weeye dhaqaalaha maaragtay dadweynaha ay adeegsanayeen iyagoo maaragtay ku gabanayn يعني waxaan shaacinaynaa ama dadweynaha tusayna waxyaabihii county governments ka soo qabteen marka waxa weeyaan dabcan dhaqaale maartay xoogan ayay gacanta ku hayaan waxa la sheegay horta saddex barasaab ama saddex maartay governors ama afar meelahaas ayaa isku raacay in ay soo noqon doonaan marka iyaga warbixintan ay soo saareen maxay ku saleeyeen marka hay'adan Infotrack waxay ku saleeyeen waxa weeyaan waa samples yani dad ayay soo wareysanayeen yaa u codeyn doontaa maaragtay saadaasha marka hadda saadaasha waxay tusaysaa Josephat Nanok ninka Turkana maaragtay governorga inuu 77% uu heli doono Okoth Obado oo ka tirsan Migori in maaragtay 68% inuu heli doono rally hawmay 71 boqolkiiba Wycliffe Oparanya oo Kakamega ka tirsan waa 68 Hassan Ali Joho Mombasa 63% ama 63 iyo maaragtay 60 ayaa loo cabsaday inuu ku soo baxo Evans Kidero magaalada Nairobi waxa weeyaan tartanka culus waa isaga iyo Mike Mbuvi Sonko laakiin Evans boqolkiiba 44 waa siday sheegtay Infotrack Peter Munya oo laga soo doorto Meru oo ah governor 42% inuu heli doono soo gartama ay saadaasha tahay meesha dheesha taalo waxa weeyaan waa Singishu ama Eldoret oo ah laf dhabarka maaragtay madaxweyne ku xigeenka William Ruto waxa weeyaan ismaandaaf weyn ayaa meeshaas ka dhacay Jackson Mandago ninka hadartan kursiga haysto ayaa waxaad moodaa hadda dhinaca NASA inuu u janjeeray marka waxa la qiyaasaa ilaa 180 cod oo ah Kenyaatiga meelaha kale ka imaaday oo waa Singisho ku nool sida Abalwiyada sida Jilwada inay u soo hoyeen yani inay u codeyn doonaan Mandago inkastoo ka tirsan yahay xisbiga Jubilee markii aan aadno Embu Martin Wambora 48% Amason Joseph Kingi oo Kwale waa 51% ayaa lagu qiyaasay waxaa jira county la yiraahdo Bungoma ayaa arin cajiib ka jirta waayo Ken Lusaka ninka meesha haysto
markii hore maaragtay mucaaradku ku jiray laakiin Jubilee ayuu hadartan ku biiray laakiin Bungoma waxay maaragtay laf dhabar u tahay NASA soo agartama laakiin waxa la sheegaya ama Infotrack ay soo shaaciyeen 52% inuu heli doono isagoo weli Jubilee ku jiro waayo NASA ayaa laba qof ayaa isu sharaxday Ford Kenya iyo xisbigan kale governorsyaasha la leeyahay way galbadeen waa sida maaragtay soo laabanayn waa Daniel Waithaka oo sagaal keliya 9% ayaa laga yaabaa inay codeeyaan iyo Joseph Ndadi Kirinyaga meesha hadartan ay ka taagan tahay Anne Waiguru iyo maamada kale iyo Martha Karua oo NARC Kenya marka haddii la fiiriyo dhinaca xildhibaanada warbixintaas waxay sheegtay 60 xildhibaan ma soo noqon doonaan waa tahay qof waliba waxa uu loolan adag xilligan ugu jira sidii markaa isagu doorashada ugu soo bixi lahaa ama dadaalkiisa ugu badan ku bixinaya saameyn intee leeg ayay dhalin kartaa ayad isleedahay hay-adan Infotrack warbixintan hadda ay soo saartay horta haddii waxoogaa aan dib ugu noqdo sidii maaragtay arrintii Mareykanka ka dhacday xitaa opinion pollska waxay aad ula janqaadayeen maamada Hillary Clinton laakiin si filan waa ayuu isku bedeleen waxba marka tamba waxa laga yaabaa inay isbedesho wahagaag aad bad mahadsantahay Cabdi Axmed